لدوين انت لا دغو قصائد كان لا اقريو الا يرى النبي الله حصا سؤالها هلا ويديو marka waxay tahay su'aasha koobaad xafladaas in bishan la qabtaa ma macsiya mase waa daaco ilaahi loogu dhawaado u fiirsada ma daaco ilaahi loogu dhawaada mase waa macsiyo hadii uu yira waa macsiyo warkii waa dhamaada Soomaa khilaafo waa dhamaada macsiyo la iska daayo haduu yiraahdo waa daaco ilaahi loogu dhawaado su'aashaana la weydiina nabigu ma ogaa sallallahu alayhi wasallam bishan rabiul awwal xaflad weyn soon kama hadlayno waliga ha ka leexan misalada laga hadla qofka haduu ka leexdo misalada laga hadla waxa weeye waxay daliil u tahay inuu san dariiq bahayn nabigu hadii yiraahdo waa daaco su'aasha labaad maxay tahay haye nabigu daacadaas ma ogaa mise ma ogay haduu yira ma uusan ogeyn nabigu jahli u nisbay waana gaalnimo haduu yira waa ogaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ogaa inay daacad tahay su'aasha saddexaad la weydiina waxa la leeyahay waa dhamaatay nabigu ilmigaas mana soo gaarsiiyay oo ma saxaabadiisii ila saxaabada ilmiga nabiga ka soo qaaday mana yiri bishaas rabiul awwal marka la gaaro xaflad weyn dhiga idabaldega baashadayda weyneeye ilmigaas mana soo gaarsiiyay mise nama soo gaarsiin oo waa la aamusay haduu yiraahdo waa la aamusay nabigii duray ilaa nabigi maxaa la yiri yaa ayuha rasuulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wa beenin nabiguna waa gaarsiiyay diintii nabigu khiyaano u nisbay haduu yiraahdo nama soo gaarsiin nabigu waa ogaa inay daacad tahay nama soo gaarsiin nabiga naqiyaan waa midda imaam maalik uu leeyahay maribta da'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala qofka diintan islaamka bid'a ku soo dara ee ka aamina inay tahay daaco wanaagsan waa qof ku andacooday nabi maxamed qiyaano diinta illa allah sheegay inay kaamil ahayd haday marka diintii kamid ahayd asuusan soo gaarsiin nabiga qiyaanay weey qof nabiga qiyaano u nisbeeyna waa kufr su'aasha soo hartay waxay tahay haduu yiraahdo ha ilmigaas waa soo gaarsiyo hala dhiga xafladu yiri خلاص انتهى الامر وضماday هاتوا برهانكم ان كنتم من الصادقين waxa la leeyahay natus kitaabka ay ku taal qofku marka wuxuu aad halka ku ekaado oo uusan warwareegin warsiiraan akhrinayaa iyo warwareeg yusuf xafladan in la qabto la isu yimaado dadka la isu keeno oo wax loo akhriyo oo mawlidka nabiga laga sheekeeyo nabigu ma sameeyo yusuf warwareegin bii qof masaladaas halkaas ku xalismaysaa marka qofkaas bal adiguna su'aal marka ninka weydiin haday saas wax ku soconayaan bal su'aal weydii adigu su'aasha weydiinaysa waxa u suuraysaa quraanka in la aruuriyo oo sidaan masaaxifta noogu yaala loo soo jamciyo nabigu ma ogaa khayr horta ma taamisa ma aha wadadiisi raac ma ku dhigi kara khayr ma ahayn ee lugooyay ahayd iyo shar waa maya ma dhigi karo khayr bay ahay soo dhihi maayo ha nabigu ma ogaa mise ma ogi har nabigu quraan waligiis baa laga qori jiray maya ha warwareegin soo muusa dhihi maya warwareeg lama rabo nabiga suuban quraanka la soo aruuriyo meelu ku yaalaba laga soo jamciyo hal meelaha la isugu keeno nabigu saas ma ogaa maya ma dhicin nabiga suuban wuxuu dhintay quraanka asagoon aruursanayn qalbi dadka ku aruursan laakiin aan quraal ku aruursanayn oo geedo timireed ay ku qorteen caleemad timireed qaar ugu qornaa qaar garbageel ugu qornaa qaar muxuu ahay harag ugu qornaa qaar dhagaxa xaleefka ugu qornaa buu nabiga suuban ku dhintay salawaatullaahi wa salaamu calayhi waxa isu keenay Abu Bakr waxaana kula taliyay sayyiduna Umar radiyallahu anhuma oo la taliyo waxa xilliga Abu Bakr uu talinayay wuxuu ku yiri war dadkii quraada ahaa dhimanaya quraanka yaqaanay quraankuna san waa ku dayacmahaya hal soo aruf Abu Bakr wuxuu yiri baan rabaa marka in bulshadu fahanto wuxuu yiri see u sameeyaa waxa nabigu sameyn Abu Bakr saas ku jawaab quraankii soo aruuriyo hal meel asuu keenso sayyiduna Umar kalamu talin muxuu Abu Bakr ugu jawaabay waxa nabigu sameyn see baan u sameeynaya muxuu Abu Bakr qiraya nabigu inuu waxaan sameyn
marka adigu hayla warwareegin nabigu ma samayn markaas muxuu ku jawaabay sayyiduna Umar wallahi ma huwa illa khayr nabigu inuu samayn waa la qiran yahay laakiin waa khayr waxaan khayr ahayn nabiguna ma samayn og Abu Bakar marka arintii way gashay uu aqbalay wuxuu u yeeray Zayd ibn Thabit saxaabiga dhigi jiray reer Ansaareed aha markaasuu wuxuu arintiiba u soo bandhigay saxaabigaas wuxuu yiri haday dhihi lahaayeen buur ka dhamee meesha ay ku taalo ka rar ayada dhab inta faas qaatay way gala fududaan lahay shaqada ii diray sababta maxay tahay waxa nabigu ma ogeyn samay xilligiisa ma ogeyn wax dhacay ma ayagii muxuu ku yiri warma wax nabigu uu samayn baa samaynaysan buu labadoodii ku yiri Abu Bakar wuxuu yiri waxaan khayr ahaan waxaanu ma asaguna arintii waa gasho waa saasan u sameeyay marka waa khayr horta quraanka in la jimciyo Abu Bakar iyo Umar iyo Zayd ibn Thabit iyo kulligood waa khayr bilay marka khayr haday noqotay nabigu khayrka ma ogaa isma ogeey in la samayn doono khayrka ma ogaa isma ogeey asagoo mid ha doorto haduu doorto nabigu ma ogeyn wixii adiga uu ka sheegay baa qabsanaya haduu yiraahdo nabigu waa ogaana su'aal aan weydiine nabigu haduu ogaa ma qariyay mise waa sheeg fara la jamciyo waa qariy haduu yiraahdo asaga soo go'aamiyay inay diinka baxtahay haduu leeyahay waa nabigu waa sheegayna halkee ku dhacday Umar wuxuu la taagan yahay iyo Abu Bakar iyo Zayd ibn Thabit waxay la taagan yihiin nabigu ma sameeyne halkee buu nabigu ku sheegay weeyaan su'aashu marka waxa weeyaan doodaas mid anagu aan saxayn inay saxan tahay aan aaminsanahay maahan laakiin waxay tusinaysaa doodii uu keenay inay qaldan tahay oo meesha ay qaban karin dooduu keenay baa qaldan meesha qaban karin sidoo kale waxa la ogyahay taraawiix baa wuxuu sameeyay sayyiduna Umar xilligiisa in taraawiixda la tukado ragana meel buu isugu geeyay dumarkana meel buu isugu geeyay arinta nabigu ma ogaama nabigu inuu taraawiix tukaday waa jiraa rag uusan ogeyn oo ugu talagelin ay ku xirteen waa jiraa oo badan marka nabigu uu joojiyayba uu yiri waxaan ka baqay in leen ku waajibiyo laakiin maya warwareeg ma taama rabno in intii dadka la isu keeno kas la isugu keeno dumarkana meel lagu fayliyo imaam loo yeelo ragana imaam loo yeelo meel lagu fayliyo nabigu ma sameeyay maya sayyiduna Umar baa sameeyay Abu Bakarna ma sameeyay sayyiduna Umar inuu arintaas nabigu uu sameeyay wuu bacadeeyo markuu arkay jamaacadii oo ogan markuu tilaabada qaaday kadib buu wuxuu yiri ni'mati bid'atu haadihi wax usuma la nimid oo nabigu ogeyn oo wanaagsan weeyay bi arintaas su'aashii marka uu keenay ninka odayga ah bal soo marsi ma soconayso waxa marka ku soo baxaya saas in wax la isu weydiiyaa qaldan ee dhabtu maxay tahay dhabtu waxa weeyaan dhacdooyinka dhacaya iyo nusuusta waxa badan dhacdooyinka nusuustu waa wax kooban waa quraankaas aad akhrinayso inta meel ka soo bilowda dhamaynayso waa xadiisaas Bukhari iyo Muslim iyo ku taalo midkiiba dhowr kun ay ku taalo iyo wixii la midka ah nusuustu way kooban tahay laakiin dhacdooyinka xalka raba oo nusuustaas in la hoosgeeyo raba ma koobna waa wax adduunku intuu jira soconaya dhacdadii marka timaada oo cusub oo wixii horay u dhacay laftoodii oo kala aan ahayn oo la soo celiyo takraar aan ahayn waxaan u fiirinaynaa diinkan qawaacidiisa dhameystiran meesha ay ka gali karto qaybtii xaraamta ay miyay galaysaa qaybtii karaahiyada ay miyay galaysaa qaybtii sunnada ahayd qaybtii waajibka ahayd qaybtii mubaaxa ahayd miyay galaysaa in la fiiriyo xalku yahay ee xal kale ma leh arintu in la dhaho waxaan lama samayn nabigu ma samayn maya meesha kuma jiro waxa yaala nabiga suuban diinkan ka dhaxalnay oo qawaacid lahaa oo nidaamka lahaa waxaan wax aqbalaya ma yihiin mise ma aqbalayaan haday ka hor imaanayaan waa bid'ah munkara ah oo lama aqbalayo hadaysan ka hor imaanayna qaybtii ay galaan haday waajib tahay noqon haday sunnah tahay noqon haday mubaax tahay noqonaysa arintaas in la helana ma ahan xal ma imaanayo waana markastoo bulsho ay midaas seegto bulsho markastoo ay seegto halka qodob oo ah shayga cusboonaaday yaana fiirin qofkee yiri yaana fiirin sababtee ku yimi yaana fiirin hadaysan dhihina asaga aan fiirino qawaacida islaamka aan u fiirino qodobkaas markastoo bulsho ay seegto waxa imaanaya qardajeexa hadda socdo kale oo mawlidka lagu wado iyo waalida
shaygaanu muxuu asagu yahay oo qawaacidda ka gelayaa weeyaan mashaakilaadkayga marka waxaan ku xallisan karnaa inaan wixii cusub oo nagu yimaada aan idhaahno ma aanan arki jirin ma ahan xalkeedu ee waxa weeyaan wixii xaq ahaa halkeebay qaybteebay ka yihiin mise waa ka hor imaanaya mashaakilka marka aan muslimiintu ay ama bulsho kasta wax ku xallin karnaa shayga cusub oo ku yimaada inay ula falgalaan weeyaan qaabkaas ee inay yiraahdaan hebel ma ogaa ama nebigu ma ogaa ama fulaan kale ma sameeyey aan dhaho ma sameeyey ma ogaada aan ku bedelo waa qalad saadaraadid bay culimadu waxay ku leeyihiin mawlidka markay ka hadlayaan nabiga suuban salawaatullaahi wasalaamu calayhi xafladda loo qabanayo markay ka hadlayaan bay waxay leeyihiin waa bidca waxay ka wadaan yani qaabkan lama sameyn nabiga suuban ma sameyn laakiin waa xasana waa shay wanaagsan bay leeyihiin shay wanaagsan adiladeedina waa kuwan ay sheegayaan waa xadiidkii uu soo qaaday hadda sheekhu qisadii ku saabsanaa nabi muuse xilligii ilaahay badbaadiyey soomkii ay yuhuudu soomanaayeen oo nebiga suuban uu yidhi annaga aan kaga awlaysan markaasuu nebigii maalinkii soomay soomkiisana amray haddana sanad kastuu nebigu ku soo celinhay tanna waa sidii oo kaleeto tabtii oo kaleeto waxba